Systemka soo dhicista mawladeena Android wuxuu qaybsamaa saddex qaybood oo kala ah kuwan. Qaybta ugu horeysa waxa weeyaan full screen oo macnaheedu tahay in dhammaan shaashadaada lagu saaro koolka ku soo dhacay. Sidoo kale waxaa jirta qayb aad u muhiim ah qaybtaas oo ah qaybta uu casharkeenu diiradda ku saari doono. qaybtan hadaba waxay kaga duwan tahay qaybtii hore inaad yareysan kartid koolkaaga amba koolku sidoo kugu soo muuqan lahaa amba seeska uu ka qaadan lahaa kamarada inaad yareysan kartid. Hadaba qaybtan waxay ku fiican tahay amba kaga duwan tahay labada qaybood oo kala waad tiidi kartaa sidoo kalena haddii ay meel ka dul fuusho waad ka qaadi kartaa oo meel kale ayaad dhigan kartaa. Sidoo kale waxaad ka dhigan doontaa qaybtii hore oo full screen ayaa taaban doontaa haddii aad calaamadda yar ee fallaadha taabatid wuxuu fuuli doonaa dhammaan shaashadaada kadibna sidaas waad ku qabsan kartaa halka laftirkeeda waad ku qaban kartaa qofkii waanad kaga jari kartaa. Waxaa jirta qayb saddexaad oo ah qaybta ugu dambaysa. qaybtan hadaba waxay kaga duwan tahay labadii qaybood hore inay soo istaagto xagga sare ee isticmaal xagga sare ee moolkaaga. qaybtan hadaba waxay kaga duwan tahay labadii qaybood hore waad tiidi kartaa oo saas ay isku dhaafin doontaa. Hadaba saddexdan qaybood iyo qaybo kale ayaan ku baran doonaa casharkeena gudihiisa oo ay ka mid tahay call recording. Ramadan Kareem soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Maanta waxaan isla wadaagi doonaa cashar xiiso badan oo ku saabsan marka uu shakhsiina soo garaaco soo u muuqdo mobilkeenu. Calashaan marka uu qofku soo garaaco soo garaacista amba soo dhicitaanka uu mobilkaagu inuu tuso inuu mobilkaagu dhacayo habka uu muuqdo. Laga yaabo barnaamij ku guda jira amba meel kale isticmaalaya inuu dhammaan xanibo mobilkaagu oo dusha ka fuulo. Hadaba si ka duwan bay maanta isticmaali doonaa oo waxaan isku dayi doonaa bal inaan yareeyno pop calling amba intan yar ee sare state baabarka oo inuu tuso marka uu qof inuu soo garaaco kale. Haddii ma tusaale ahaan aan ku tuso oo kale waxaan sheegayaa intan imika wad aragtaa shaashadii oo dhan wada qabsaday. Hadaba ma dhici karta inaan yareeyno oo shaashada ma ka yareyn karna bar haddana waan tijaabin doonaa. Imika haddii la soo garaaco saas bay noqotay oo wad aragtaa inuu dhammaan shaashadii wada qabsaday. Bal waxaan isku dayi doonaa mar kale sidoo u muuqdo haddii uu shakhsiina soo garaaco iyo seen u yareynay. imika meel kale ayaan tagi doonaa matalan oo kale. imika hadaba bal waxaan isku dayi doonaa inuu shakhsi inuu soo garaaco. waxaan inaguna isku dayi doonaa inuu mobilkeena yareeyno oo xaggii calling-kii calaamad yareeyay imika shaashada mobilka oo inaga qabsatay inaan intii hore ka yareeyno. imika waad aragtay calaamadii waa tan oo way intii hore way ka yartahay inta leegtay dhinac kasta uu jiidi karaa. sidoo kale anoo meel kale isticmaalay anoo barnaamijka ku guda jira anoo matalan WhatsApp ku guda jira Facebook ku guda jira waa halkan oo waan arki karaa qofkii intaana waan ugu jawaabi karaa haddii aan rabo in soo weynaystaan calaamadda ayar fallaadhu ma soo oranaya. sidoo kale haddii ay isleeda meel bay ka qaranaysaa waxay u jiidi kartaa. haddaba maanta waxaan baran doonaa casharkeena gudihiisa ku baran doonaa sidii aad sidaa u sameyn lahayd u yareyn lahayd pop calling-kan iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin sidaa u duubi lahayd recording-ka shakhsi gooniya aad ku amrisay mobilkaaga shakhsigaas markuu soo garaaco call recording-kiisa iyo duub. hadaba casharkeena maanta ku daawan doonaa ee daawasho wanaagsan. casharkeena gudihiisa waxaan ku sameyn doonaa saddex hab oo kamid ah hababka uu sameeyay systemkeena caadiga ee mobilkeena ku diyaarsan. ugu horeyn waxaan soo geli doonaa xagga calling-ka amba phone call-ka caadiga ayaad soo geli doontaa. kadib marka phone call-ka soo gashid waxaad taaban doontaa saddexda yar ee calaamadood ayaad taaban doontaa. kadib saddexda yar calaamadood marka taabatid waxa ku soo bixi doontaa setting ayaa ku soo bixi doontaa. setting marka taabatid halkan waxa isugu soo tixi doonaan qaybo fara badan baa isugu soo bixi doona oo aad u tiro badan. casharkana laba qaybood baan kaga dhigan doonaa oo ah inaad shakhsi gooniya ku amartid mobilkaaga in codka lagaaga qabto amba intuu qofkaas kula hadlayo codka lagu duubo iyo sidii aad u sameyn lahayd call display-ga caadiga marka isticmaalaysid abloka kale soo u soo muuqan lahaa. marka ababka isticmaalaysid inuu call display-ku muujiyo wajiyo kala duwan. hadaba saddex wajiyo ayaan ku baran doonaa gudaha casharkeenan kulli xagga hore waad ku soo aragteen. saddexda wajiyo waxa taabanaysa ku qoran call display will using apps halka call display ku qoran tahay ayaa taabanaysa. hadaba marka halka taabatid xaggan waxa kugu muuqata saddexdii habaynaha ka muuqda oo ah full screen oo macnaheedu tahay mobilka dhammaan shaashadiisa ha wada qabsado calling-ka amba marka mobilkaygu rayn leeyahay oo dhacayo. sidoo kale xaggan dhexe ayaa taabatid waa bab oo waxa weeyaan calashaan inta yar sare waxayna tusinaya shaashada yar bayna tusinaysa oo ah inta yar sare ha qabsado oo calashaan inta yar sare ha fuulo. sidoo kale halkan waa tiimka aynu tusinay ee ugu dambeysay oo macnaheedu tahay yare oo ah toogu yar oo markaas wuxuu noqon doonaa call-ku mid aad wadi kartid iska jiidi kartid sidoo kalena aad soo weynaysan kartid. bal hadaba imika taa ugu tirsaday in tijaabino mid kasta waan tijaabin doonaa
full screen kaagan ka dhigno waad arki doontaan oo shaashada oo dhan wuu xanimi doonaa oo calashaan shaashada san buu wada qabsan doonaa iminka waad aragtaan halka marka moolka inoo soo dhaco waad aragtaan oo shaashadii san buu wada qabsaday bal haddana way isku diyi doonaa mar kale inaynu qaybta kale eegno qaybtan kale ah pop up to waa xagga sare gee oo xagga sare calashaan ha istaago sida mooladeenu inta badan u badan yihiin way dhacdaa oo iminka xagga sare ayuu koolkiisu istaagi karaa xagga sare ayuu koolkiisu istaagi karaa qaybtii hore haddii aad rabtid inaad iska jirtid waxa ina ka wada baxid amba home back ta taabatid moolkaaga laakiin se labadan qaybood dambe si yaro iyaga la isku dhaafiyo leeyihiin si yaro la isku dhaafiyo ay leeyihiin haddana qaybtan dhexe pop up ta ayaan tijaabin doonaa oo iyaduna say u muuqanayso ama halka soo istaagayso waxaana kaga duwan tii hore iyo labadan dambe waa laba hab yaro ay leeyihiin oo aad isku dhaafin kartid sidoo kale waxay leeyihiin inaad sidii zoom soo oran kartid oo aad soo weynaysan kartid oo ay tii hore kaga duwan yihiin haddaba waxaa jirta habab fara badan oo noocan oo kale application ku takhasusa waxyaabahan oo noocyo kale u kala dhiga application kala duduwa laakiin se maanta waxaan joognaa gudaha mobilkeeni caadi ahaa bilowga ahaa amba systemkii caadiga ahaa ee mobilkeenu ku sameysnaa iminka wax isku daydayna doonayna qaybta dhexe tijaabino qaybta dhexe wad aragtaa hal koolka ii soo taagan yahay koolka halkaas ayuu taagan yahay oo sayn laha siyaabi kale oo kaga duwan yihiin saas ayaan isku dhaafin karaa soo kale haddaan taabtan waan soo weynaysan karaa iminka saas waan isku dhaafin karaa koolkii oo wuu iga qaadnaya soo kale haddaan halkaa taabtana wuu soo wada istaagaya oo full home screen buu noqonaya bal waxaan tegi doonaa qaybta ku xigta oo iyadana ay kaga duwan tahay qaybaha kale inaynu qaadi karno amba jiidi karno haddaba qaybtan ugu hooseysa haddii aynu eegno qaybtan ugu hooseysa waad aragtaa halka moolka istaagayo halka sare lagu tusay halka uu koolka istaagayo hadhow qaybtan laftarkeedu iyadu waxay kaga duwan tahay qaybtii hore labadii qaybood hore inay la jiidi karo iminka waad aragtaa halkan weey moolka inuu dhacayo moolmiis waad halkan taagan oo waad qaadi kartaa soo kale sanna waad oran kartaa oo kalba gifti waad geyn kartaa haddii aad rabtid soo weynaysta full screen ka dhigatid saas oran kartaa intaasba waad samayn kartaa haddaba saddexda qaybood ee aan isku tusi doono casharkeena gudihiisa haddaba sidee baan specific person uga dhigi karaa inuu codkiisa laga duubo amba laga duubo qofkaas kaliya markuu soo garaaco amba shakhsigaas kaliya moolka uu amri karaa inuu ii duubo codkiisa haddaba waxaad samaynaysaa halka ku qoran tahay recording calls baad tegaysaa kadib marka recording calls tagtid waxaad tegaysaa halka ku qoran tahay auto recording calls halkaas ayaad tegi doontaa marka taa ka tagtid waxaad off halka ah waad on ka dhiganaysaa halka ku qoran tahay all number ay ku qoran tahay waad ka baabinaysaa halka ku select number ayaad tegi doontaa select number marka tagtid qaybtan ku hooseysa ayaad tegi doontaa lambarkii aad rabtay in maxay hatolay matalan oo kale lambarka aad rabtay in maxay hatolay lagu waxeeyo ay halkan gelin doontaa lambarkii marka halkan gelisid waxaad oran doontaa dhan baad oran doontaa waad ka jaraysaa kadib haddaba marka saa tahay lambar baimka maxay hatolay ayaa halkan sidoo kale laba qaybood oo kale uu leeyahay oo ah waa recent iyo contact lambarkii ugu dambeeyay ku soo garaacay laftirkeeda saasaad oran doontaa oo waad dhan baad oranaysaa kadibna waa halkaas uu ku soo istaagi doonaa haddii rabtid hadhow ka baabiisina calaamadda remains ka taaban doontaa haddii rabtid contact laftirkiisa ka soo qaadid contact ka taabanaysaa kadibna lambaraantii amba shakhsiyaadka caadiga ah waad gudageli doontaa waad samayn doontaa haddii uu lambarka xifdsan tahayna intaad xaggan ka qortid intaad xaggan lambarkii ka qortid ayaad maxay hatolay ayaad calaamadda airbalaas ku taaban doontaa kadib lambarka halkan buu istaagi doonaa marka halkan lambarku istaago haddii rabtid ka jirtina minuskaasaa taaban doontaa haddaba qaybtana waxay ku fiican tahay amba ku wanaagsan tahay inaan dhammaan dadka kusoo garaacayo dhan codkooda lagu duubin ee kaliya lagu duubo shakhsiga u baahan tahay markuu kusoo garaaco inuu codkiisa dhageysatid amba inuu codkiisa duubo laga yaabaa inaad qof seesaan kadibna aad isleedahay moolka ka duubo qofkaas intuu kusoo garaacayo qofkuna inta qof ee kaaga soo horeynsi garanaysid haddaba waxaa macquul ah inaad qofkaas kaliya ku save gareysatid in codkiisa lagu duubo haddaba maanta casharkeena intaas ku saabsanaa كل 10 هرو كانوا يريقنا وسوقين حقاس حقني كنالكا واتكسو داوان دونتا waxaan ku jira 10 dhexe aad iyo aad baan u rajeynayna kanaalka soo iskari garin doontid kana mid noqon doonta saaxiibayaasha tooska